waxaan halkan maanta ku qabanayaa dhowr barnaamij oo isxiga oo ku saabsan qaybaha maansada Soomaalida. Soomaalidu waa iyada maansada jecel, laakiin waxaad mooddaa waayadan dambe in dhallinyarada iyo dadka haddii alla kuu roon yahay suugaanleyda in badan oo ka mid ah inay isaga qasan yihiin qaybaha maansadu. qaybaha maansada Soomaalidu waxay iska raacaan oo ay haddii alla kuu roon yahay ay ka midaysan yihiin waxa weeye dhowr arrimood. kuwa ugu waaweyne waxa weeye qaafiyadda, waxaana ku xiga miisaanka waxa la yidhaahdo. labadaas ayaa aad iyo aad ugu waaweyn. qaafiyaddu waxa weeye in uu hal xaraf keliya gabaygu ku bilowdo una dhammaado. macnaheedu wuxuu yahay beydka gabayga ah ama beydka geeraarka ah ama geedka jiiftada ah in uu yani maalan gabayga oo kale isaga ayaa ugu dheer iyo buraanburka. labada dhinacba waxaa la rabaa laba meelood inay ka galaan erayo haddii alla kuu roon yahay isku xaraf ka bilowda. waa tusaale ayaan ka bixin doonaa haddii alla idmo. geeraarku waa sidoo kale, laakiin isaga waxaa laga rabaa hal eray oo ka bilowda xaraf qura inuu ku bilowdo kuna dhammaado. jiiftadu laba xaraf weeye haddii beydkeeda laba dhudood laga dhigo. heesuhu waa la mid, waa beydgaab weeye, beydkooda aad u gaaban, markaa waxay qaadanayaan iyagu erey keli ah oo hal xaraf ka bilowda. waa sida geeraarka ayay la mid yihiin. raggii hore ee Soomaaliyeed markii ay gabyayaan, raggii maansayahanada ahaa, waxay u badnaayeen inay ku gabyaan gabayga laftiisa kaa dheer oo labada ereygiiba laba erey oo isku erey ka bilowda uu ku jiro, midba dhinac kaga jiro. haddaan tusaaleeyo marka, qamaan burxan wuxuu yidhi, waxaan tusaalayaasha aan soo qaadanayaana waa kuwa aad loo yaqaano oo Soomaalidu ay wada taqaano. marka su-aasha ah maxaa gabay ah, halkan ayaad kaga jawaabi karaysaa siduu u dhacayo. wuxuu yidhi qamaan burxan, baadida nin baa kula dayday daalna kaa badan ee aan doonahayn inaad heshana daayin abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayna dallana ma laha aakhiro haddii loo kitaabdayo. saasaa gabaygu u dhacaa. oo maalan gabaygaan xarafka uu ku socdaa haddii lagu weydiiyo waa deel weeye ama da. maxaad ku garataa? baadida nin baa kula dayday waxay ka bilaabataa deel weye. daalna kaa badana, beydka qaybtida labaadna waa daalna kaa badana ayay xarafkaas ereygaas ku jira oo deelka ah oo daalna ah ayaa haddii alla kuu roon yahay labadaa meelood buu ka galay. tusaale kale oo isna aad loo yaqaan oo gabay ahi waxaa weeye, haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin eraggu xaaraane dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye dadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meelee dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dharbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliya dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abid. kaasina waa gabay. tusaale saddexaad haddaan soo qaato waxaa weeye saahid qamaan gabaygii haddii alla kuu roon yahay uu asxaabsi u tiriyey ee ku saabsanaa dimuqraadiyadda iyo sinaanta dadku inuu siman yahay, uu rabay inuu ku muujiyo. oo uu yidhi rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaannu nahay oy tolnimo meerta noo tahaye oon weliba kaga miil caddahay miilsa diidaniye masallaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho muska inay afay galo arlada kama micin moodo. waa gabay isna. weli waxaan wadnaa tusaalayaashii gabayga. gabay kale
waxaa weeye waxaa iska lahaa maroordiiq buu ahaayo waxaa iska lahaa isna cali jaamac haabiin nin dhintay oo xirsi cilmi goolle la odhan jiray ayuu ku ammaanayey uguna maroordiiqay gar adkaatay xaajada guracan guurti kala maagtay haddii geedka la isugu yimaad golaha waayeelka nin waliba hadduu gees damco oo giijo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba halkii la isla goyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu gaafa hadalyaaba geesi hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gocanaya mooye waa tusaale kale oo gabayga ah tusaalaha shanaad uguna dambeeya oo aan gabayga ku soo qaadanaya waxaa weeye nin isna haddii alla kuulay dirir warsamo la odhan jirayoo daraawiishtiisa maxamed cabdilla xasan la col ahaa waagii ay la dagaalamayeen gumaystayaasha markaa ninkaasi wuxuu yidhi tol kaa maarmay gacal kaa milishiyey mudana kaa leexday xididkii aan maamuus lahayn melihibaa dhaanta marwo camal xunmaangaab ninkeed maqashabaa dhaanta mataan lidiqa laas miila leh yaa mitamis dhaama tol kaa maarmay gacal kaa mishiyey mudana kaa leexday xididkii aan maamuus lahayn melihibaa dhaanta muslimnimo ninkan kuula socon muuminnimo khaasa gaal maxasta kuu dhowra ood magan gashaa dhaama tusaalayaashii gabaygu halkaa ayay inoogu dhammaadeen